software suurtagelinaya in gacanta lagu qabto dhammaan xogtaada iyadoo lagu soo diray hal fariin. qofka barnaamijkan isticmaalaya waxa uu taabasho qura dhulka la jari karaa dawlado iyo ummado sanado dhisnaa. With the click of a button, you can bring down nations to their knees very rapidly if you so desire and if you're willing to take the risks, because every system can be hacked. software ay ku haminayaan dalal badan sida ay u heli lahaayeen, kuwana ay ku dadaalayaan sida isaga ilaalin lahaayeen. software lagu jabsan karo sistemyada oo dhan. muuqaalkeena maanta waxaanu diiradda ku saaraynaa barnaamij lagu basaasay madaxda dawlado, mucaarad, ganacsato iyo rayidba. waa barnaamijka Pegasus. halkani waa Halgan Media. magacayguna waa Axmed Maxamed. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Pegasus waxa uu ku jiraa barnaamijyada ugu horumarsan caalamka ee wax lagu basaaso. shirkadda NSO oo laga leeyahay dalka Israel kuna xeeldheer dagaalada tiknoolajiyadda ayaa soo saartay barnaamijkan. shirkaddan ayaa saldhigeedu ku yaala Tel Aviv, caasimadda gumaystaha Israel. shirkaddaas ayaa samaysay barnaamijka loo yaqaan Pegasus oo lagu tiriyo kuwa ugu horumarsan marka ay noqoto la bixidda xogtaada adoon ogeyn ama ka warhayn. qaabka uu shaqeeyo waa qaab ah in qofka la waarsanayo uu riixo fariin ama linki loo soo diray. barnaamijkan waxa uu awood buuxda u leeyahay wada sheekaysiga dahsoon ee koodh kale ee madaxdu isticmaasho inuu jabsado. nidaamkani waxa uu leeyahay 36 rogood oo qalabkiisa basaasaneed ka duulaan, 33 waa laga iibsaday. gumaystaha Israel waxa uu ku aanaynayaa ama uu yiri sababta ugu weyn ee loo aasaasay ama looga iibiyay dawladaha waxa ay tahay inay ka caawinayso sidii loo xadeyn lahaa dilalka iyo faldambiyeedka laga yaabo inay dhacaan. cilmi baaris ayaa sheegaya in 16 dawladood oo Carab ahi ay si toos ah u isticmaalaan software-kan. dalalka Carbeed markay gacanta ku dhigeen si baan ayay isugu adeegsadeen. Amiirka bin Salman ayaa ah shakhsiyadda ugu badan ee adeegsata barnaamijkan. haddaynu xusno mararka uu adeegsaday waxaa ka mid ah dilkii Jamaal Khashoggi iyo taliyihii ilaalada qaranka Mut'ab bin Abdillah oo ahaa nin ay suurtagal ahayd inuu ku guuleysto una tartamaan dhaxalka ama booska uu hadda ku jiro Salman. halka ay Imaaraadku ka howlanaayeen basaasidda ku dhawaad 200 oo qof oo ka mid ah dawladda Qatar, ayna ka mid yihiin xubno ka tirsan boqortooyada. shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara tiknoolajiyadda iyo kuwa mobiladuba waxa ay lacag far badan ku bixiyaan sida ay barnaamijyadooda uga ilaalin lahaayeen in la jabsado. laakiin Pegasus waxa uu mar walba awood u yeeshaa inuu ka gudbo ammaankaas si kasta loo adkeeyay. basaasidani kuma eka mucaarad oo kaliya, sidoo kale waxaa loo adeegsaday madaxda dawlado waaweyn sida Macronka Faransa, carada alla korkiisa ahaatee ra'iisul wasaaraha dalka Faransa Edward Philippe iyo ka Pakistan Imran Khan. barnaamijkan asigiisa waxaa loogu talagalay qaab ah linki in loo diro dhibanaha ama qofka la ugaarsanayay. laakiin sidaynu ognahay dadkuna ku baraarugsan yihiin in aadan furayn linki cidlo kaaga yimi ama aadan aqoon cidda kuu soo dirtay. Originally, when we started studying Pegasus in 2016, a target would have to click on a link sent via SMS in order to facilitate the infection of the phone. If you didn't click on the link, the phone wouldn't get infected and wouldn't be able to be monitored. way suurtageli weyday waxaana lagu sameeyey horumar iyadoo laga dhigay hab mobilka lagu dhici karo iyadoo linkiba la soo dirin. uu kana gudbi karayo difaaca mobilkaaga si kasta uu adeeg yahay. waxaa la soo garaacayaa qofka taleefanka wata ama waxaa loo soo dirayaa fariin. ha furo fariintaas ama yaanu furin koolka hadduu qabto iyo haddii kaleba. muhiimaddu waa la gaadhay. But around 2017 or 2018, NSO Group appears to have released a major update to the Pegasus system, which allows governments to hack into phones with a so-called zero-click technique. guud ahaan daawade intaas waa muuqaalkeeni maanta. haddii aad ka heshay like saar, haddaad nagu cusub tahayna subscribe dheh si ay kuu soo gaadhaan muuqaallo badan oo xiiso leh. mahadsanid. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.